Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtiin dhammaantiinba. Ka hor intaynu guda galin muuqaalka casharkani, Allah iginoo saar. Waa maadadeenii farmakolojiga ayaynu ku baranaynay daawooyinka casharkii toddobaad. Casharkani maanta waxaynu ku baran doonaa daawooyinka loo yaqaano antiprotozoal drugska ee lagu daaweeyo parasite-ka noociisa loo yaqaano protozoaha. Qodobadaynu casharkeenu maanta ku baran doono waxaa ka mid ah inaynu introduction ku sameyno parasiteska iyo inaynu barano daawooyinkani loo yaqaano antiprotozoal agentska iyo daaweynta lagu daaweeyo noocani protozoa ka mid ah loo yaqaano amebiasiska. Waxaan rajayn doonaa ilaa dhammaadka casharkani inaad idinla gaari doontid biidnillaahi jalla wacala. Haddaynu ku horeyno introductionka, parasiteska ama derisku noolaha waxa uu u jiri karaa laba nooc oo kala duwan. Labadaasi nooc oo kala ah mid hal unugle ah ee loo yaqaano protozoa iyo mid unugyadiisa ay badan yihiin ee loo yaqaano helminthes oo ah gooryaanada. Markaynu qeexno protozoa, waa noole ilma aragti ah kana kooban hal unug kaasoo u noolaan kara si xor ah ama ku noolaan kara noole kale sida dabiiciga ah. Inta badan cudurrada ay keenaan protozoaha waa kuwo si fudud loo daaweyn karo marka loo fiiriyo infekshanada inta badan ay keenaan bakteeriyada. Intooda badan daawooyinkani protozoal drugska loo yaqaano waxa ay keenaan sumowid halis ah taasoo saameyn karta qofka qaata daawadani. Sababtaasi darteed ayaa inta badan daawooyinkani loo yaqaano antiprotozoal agentska aanan loo ogoleyn in ay qaataan dumarka uurka leh sababtoo ah weli ma bacda badbaadadooda. Marka aynu ka hadlayno daawooyinka loo yaqaano antiprotozoal agentska waxay u kala baxaan 6 qaybood. 6da qaybood oo kala ah daawooyin loo isticmaalo in lagu daaweeyo ameebaha, daawooyin loo isticmaalo in lagu daaweeyo plasmodiumka ama malaariyada, daawooyin gaar ah in lagu daaweeyo jaardiyaha, daawooyin loogu talagalay in lagu daaweeyo cudurkani loo yaqaano leishmaniasiska iyo daawo gaar ah in lagu daaweeyo toxoplasmosiska. Qaybta 6aad ayaa ah daawooyinka lagu daaweeyo cudurka loo yaqaano trypanosomiasiska. 6dani daawo ayaa soo kooba marka laga hadlayo qaybsanka antiprotozoal agentska. Amebiasis ama amoebic dysentery waa infekshan inta badan ku dhaca tubbada mindhicirka waxaana sababa protozoa loo yaqaano Ankylosing histolytica. Waxaa inta badan lagu ogaadaa cudurkani stool examination marka la qaado sababtoo waxay soo raacaan saxarada qofka. Daawooyinka ameebaha waxaa loo qaybiyaa sidani soo socota: kuwa loo yaqaano liminal amebicides iyo kuwa loo yaqaano systemic amebicides iyo kuwa saddexaad ee loo yaqaano iyagana mixed amebicides. Liminal amebicides daawooyinkani loo yaqaano waxay inta badanba ka howlgalaan parasite-ka ku jira caloosha gudaheeda waxaana loo qaybiyaa labada daawo ee kala ah idaquanol iyo daawada labaad ee loo yaqaano promomycin. Halka kuwa loo yaqaano systemic amebicideska ay ka howlgalaan parasite-ka laga helo derbiga mindhicirka ama beerkaba. Daawooyinkan waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano chloroquine iyo daawada labaad ee loo yaqaano dihydroemetic. Qaybta loo yaqaano mixed amebicides-kana waxay kulmisaa labada qayb ee ahaa liminal iyo systemicaba goobaha ay ka howlgalayeen ayay qabataa. Waxaana ka mid ah daawooyinka inta badanba soo gala labada daawo ee kala ah metronidazole iyo daawada loo yaqaano tenofovir waxaana lagu tiriyaa inay ka mid yihiin daawooyinka loo yaqaano mixed amebicideska. Idaquanol markaynu ka hadalno daawadani waa mid amebicide ah oo waxay dishaa Ankylosing histolytica protozoa loo yaqaano. Inta badan waxa ay ka falgashaa xilliga uu ku jiro trophozoite ama cystiform inta uu ku jiro socodka iyo taranka iyo xilliga uu ku jiro
taran joojinta iyo socodkaba labadaasi xili ayuu inta badanba la falgalaa. Mechanism of actionka saxda ay leedahay dawadani lama yaqaano weli, balse waxaa la ogyahay inay qabato ambicidal effect oo ah in ay disho antimeba histolytica, protozoaha loo yaqaano ee sababa ameebaha. Bukaanka marka uu qaato dawadani idaquanol, side effectska uu isku arki karo waxaa ka mid ah nabro ku soo baxa oogada sare ee maqaarka, shuban iyo murqo xanuun. Intaani ayaa macquul ah inuu isku arko bukaanka marka uu qaato dawadani kadib. Dihydroamycin waa daawo bedel u ah marka laga hadlayo daaweynta amebiasiska. Mechanism of actionka ay leedahay dawadani waxa ay joojisaa samaysankii borotiinka iyadoo blockage ku samaysa silsiladii DNA-gu lahaa, taasoo marka sababi doonta in ay joogsato samaysanka borotiinka. Qofka marka uu qaato dawadani side effects uu isku arki karo waxaa ka mid ah xanuun uu ka dareemo goobta infectionka uu ka jiro, neerfooyinka murqaha ku jiro oo daciifa, sumowid ku timaada wadnaha iyo dawaqaad uu qofku isku arki karo. Afartaani calaamadood ayaa uu qofku isku arki karaa kadib marka uu qaato dawadani. Metronidazole dawadani waa daawada ugu horeysa ee la doorbido marka la rabo in la daaweeyo infekshanada uu keeno ameebaha. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo infekshano kala duwan ay keenaan bakteeriyada ama darisku nooleyaashaba. Metronidazole waa daawada qofka marka uu qaato oral ahaan si degdegsiimo iyo dhammaystirnaanba ku dheehan uu jirka u qaato. Distributionkeedana waxa uu ku dhacaa dhammaan qaybaha jirka. Haddaynu ka hadalno markaani mechanism of actionka ay leedahay dawadani waxa ay inhibition ku samaysaa samaysanka borotiinka, waxayna keentaa in DNA structurekeeda ay weyso oo ah in silsiladii ama xaraggii uu ku yimaado breakage oo dilaacmo, sidaa darteedna ay meeshaba ku failgarowdo in la sameeyo borotiinkii. Qofka marka uu qaato dawadani metronidazole waxa uu isku arki karaa side effectyadani soo socda midkood: in qofka uu isku arko labalabo, inuu matag dareemo, iyo inuu qofka isku arko calool majiir. Saddexdani astaan midkood haddii uu qofka isku arko waxay astaan u tahay in ay tahay side effectskii ay lahayd dawadani metronidazole oo qofkaasi isku arkay. Dhammaanna bukaanada laguma arko ilaa qaarkood mooyaane. Waxaan halkan kusoo afmeeraynaa casharkeennii maanta. Casharkani qaybtiisa labaad intaynu ku kulmi doonno oo inoo noqon doona muuqaalka inoo xiga. Waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.